ما نك أنا عملكم صنعنا مو إسكا بعدين بركات بعد ساعة ساعة ساعات مركي أي هاد الله يتوانك يروح الرنوع يا وعاء لسه حيري أنا وعاء الدنيا كمان بشكل المدى أفقوي إذا عاد اللي يقول بشوك وعاود الشقين اللي هو الشقين حوق الأيكار لحيصو ما عمرو قول كشغل الله عوصي وريه كميدا اللي قال محمد جورجوب اللي قالوا أي لسه حيري إنا شاقي إن وريه كميدا ورياش جورجوب شغل الأفضلتي isla markaana oo la soo xiriiray asiga oo fakaday calaawadi afduubatay ka fakaday oo la soo xiriiray idaacada wariyaas oo aan garanaynin isla markaas goobta uu ku sugan yahay aan garanaynin inta markuu soo gaarsiiyay ka bacdi ayaa waxaan sameeyay baadidoon eelida la igu tilmaamay ayaan baadidoon ka sameeyay waxaan ilaahay la kulmiyay in aan helo dad gacanta ku haya oo ayaguna baqaya meel degmada u jirta ilaa 5 kilomitir degmada afkii u jirta إلهي بقى مع هذا السكرة دعنا روح أنا رد ورطوا أنا شعبك أن ما تنفتي ما بيمينه وأنا بيميني إسلام مركز بوك مركز عن طرق رومانيكي وسلسلة كحيرا وهذا طرق فيصلنا هذا كرين وحنا وعدي كلا سعيدة كبوليس كصوماليات دقمة أفجوية سلك البوليس دقمة أفجوية يعني وعي وحنا لحد يريد الدنيا قبل كشغل الله واسع وحنا لحد يريد الدنيا دقمة أفجوية أو ثلاثة كيسي أو يدعي وعي kadib markii aan helay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo taliyaha saldhigga booliiska iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay fuudaatay in aan maaragtay sidaa aan ku wada xiriirno kuna wada shaqeyno aan dhammaan sidaas talo wada jira ku soo gaarsiino taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed inaan sidaa ku soo gaarsiino iyadoo uu madaxweynaha gudoomiyaha gobolka taliyaha ciidanka qaybta booliiska gobolka Shabeellaha Hoose taliyaha saldhigga booliiska degmada Afgooye sidaas ayaan ku soo gaarsiinay hanad oo aad jeedaan dhibaatada ka muuqata anaga waajibaadka noo yilaadii aan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose heer gobol halkaan ayuu nooga egyahay marka biidhnillaahi tacaala insha Allah haddana waxaan kusii wareejin doonaa haddii Allah wadna uu raalli ka noqdo gudoomiyaha gobolka oo aad iyo aad uga qayb qaatay arrimahan una dhiirigeliyey in aan meel kasta arrintaas ay ila gasho aan la galo inuu dhiirigeliyey aad u mahadsan yahay meel aan weli tegin oo aan weliga tegin oo ka baqa jiray ayaan saaka tegin ayadoo gudoomiyaha uu amray uu leeyahay soo ma naga kartid oo leeyahay ilaahina wuxuu ii sakhiray inaan warihiina asigoo maaragtay nool aan maaragtay aan soo badbaadiyo aniguna aan ka soo badbaado ilaahay baan na soo badbaadiyo dhammaantaynaba waxa weeye dowladuna waa kala dambayn haddii aan maanta dhihi lahaa gudoomiyaha meesha ma geli karo hadna inuusan badbaadin ayaa dhici karta ilaahay xukunkiisa ay waxba ku ahaanayaan anigoo qaatay awaamiirta gudoomiyaha gobolka waxaan go'aansaday ilaahay baa wax dila inaan aniguna walaalkayga sida aan kusoo badbaadi lahay aan maaragtay wax walba u huro ilaahayna waa igu sharfay waana igu soo karaameeyey waana keenay waxaana kusoo wareejiyey gudoomiyaha gobolka hadda sida aad ujeediin ba hadda ujeediin waa nin aad u dhib qabo haddana waxaan ku wareejinayaa insha Allah wixii aan dhamaystira gudoomiyaha gobolka oo aad iyo aad arrintaas u qiirooday dhiirigelin aan caadayna iga siiyey ilaa saaka amar idin dhigay hadba inuu amar siiyo ma moodaba marka dambayso wuxuu leeyahay soo ma noqon kartid amba soo dhiba amba keen wariyi marka insha Allah aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh booliska Soomaaliyeed heer guudba walaalaha Soomaaliyeed ee halkaan jooga asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh السلام ورحمة الله walaalkii waxaan uusan jirtay waxaa ma dhihi doono ilaahay baa mahad iskale oo runtii gacanteeda uu ka soo badbaadiyey annagana loo fududeeyey isagoo bad qabo inaan maanta kusoo wareejino taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan si gaara ugu madceliyo bahda saxaafadda bulshada idin sheega indhaheeda waa warbaahinta muddo fara badan ayaa wadankan kusoo hubayseen naftiina aad usoo runtii khatar usoo gelinayseen Soomaaliya heerka ay joogto maanta ma gaari lahayn haddii warbaahintu aysan qayb ka qaadan lahayn walaalkeena isagoo gurmudkii abaaraha bulshada Soomaaliyeed oo dhan saameyn ku yeelatay oo qalbeedkiisa ku jira ayaa cadow gacanta runtii uu galay oo Soomaaliya oo dhan dan ka lahayn waxaan rabnaa haddii hal meel looga soo wada jeesto ayaga oo dhan Soomaaliya ma baabi'in karaan shacabkeeda ma baabi'in karaan Soomaaliya way jiraysaa shacabkeedana way jiri doonaa kuwa warbaahinta kasoo horjeeda shacabku u adeegaya dowladnimada Soomaaliyana kasoo horjeeda insha Allah tacaala ayaga ayaa baabi'i doona inaan isgacan qabsano waan idinkaga mahadcelinaynaa runtii
khatarta joogtada aad ku shaqaynaysaan oo shacabkiina iyo dowladdiina iyo soomaalinimadii iyo wadaniyadii aad ugu adeegaysaan inaad sii joogtaysaan idinku codsanayna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kalama saarayo booliiska iyo maamulka iyo shabeellaha hoose way dhammaan saxaafadda booliiska dhammaan waxaan ku salayaa salaatu wasalaam. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. annaga waxaa nooga furan laba qodob aa nooga furan maamulka gobolka shabeellaha hoose dhammaantood waa u mahad celinaynaa sida wanaagsan ay u soo badbaadiyeen weliya xanad riboorkiisa waa la soconnay shalay markii la qafaashay ilaa iyo halla xaaladiisa waa la socon insha allahu saa uga xarmin annaga baaristiisa inaan xilnaan jecelnahay dadkii dhibkaa geystay waa la baaraya waana la heli doonaa amartan insha allah haddii ilaaha yidhaahdo qofku inta dembi galo haddii sidaa looga haro haddi soomaali baacidaan baa lagu wada baabayna marka insha allahu booliis ahaan annaga waa helaynaa kana xarimayna ilaa afartan u dambeeya aan soo helno hadda xilliga la joogana haddii ilaah yidhaahdo nabadgelyadiisa mas-uuliyaddiisa annagaa iskale annagaa isbitaal geynayna annagaana nabadgelyadiisa ka mas-uula laakiin dhammaan waxaa u mahad celinayaa oo si gaara u mahad celinaya maamulka gobolka shabeellaha hoose sida wanaagsan ee usoo seerbareeyeen u keeneen usoo xamaaneeyeen waa ugu mahad celinayaa marka guddoomiye maamulkaada iyo booliiskaada dhammaantiinba waa idin mahad celinaya insha allahu wariyaashan soomaaliyeed hadda waxaa waaye haddana adinkaa ladinka rabaa in aad wax walba ka hadashid wax walba sideetaa u sheegtid wax uu hadleeyay iyo cid xoola ka qaba iyo cid askari dowladad maaha waxa lagu qafaashay maxaad saxaafadda u sheegaysaa wey waa idaro marka waa mahadsantiin adinkana dhammaantiinna waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu